عتيبة سلطان إنه معدرين بس قرصدي ما هذا فيديو لايك سارة waxaan rabaa inaad fiidiyowgan like saartiin inay lacag lagama qaadaye like iska saar ha adaan kula hadlayaa adiga nimanka ay daawanaya inaan waalan muuse laakiin ma waali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دي سلام يا صحابتي ميل كستا دونك جوجتان وحمد لله مسكينتي نيراد صحابتي سو دواada leeyahay asxaabta dad nagu cusubtii soo dhawaada hore noola joogteena waxaan ku leenahay like share subscribe comment intaba waa xaqiina comment kuna waa dhiirigelintiina asxaabta qaaliga maanta muuqaal baan idin wada muuqaal yaro gaaban muuqaalkaasi waxa weyn Suldaan Seraar oo maalmo dhow la wareysanayay oo uu lahaa wareysigiisii ma soo wada qaadan laakiin in kamid ah soo qaatay markii uu ka hadlayay nimca dareen waad guursatay markii la yiri ayuu ka jawaabayay waliba isagu su'aalihii la weydiiyay kama mid ahayn laakiin isaga ku daray wuxuu maalmahan waxaan arkay dadka media maartay la dhex wareegaya waxba diisi faahfaahin ma asxaabta qaaliga muuqaalkiina wada daawataan baan jeclaan lahaa nimca dareen buuri oo fiilan isku guursadeen waana walaashi waligood bay dadku marka laba qof isku arkaan la oran jiray way isku guursadaan dadka ba iska sidaas laba qof hadii la isku arko way isqabaan jaaw dadka waxa jira dad maaragtay isu guuriya kala fara kala dira isku dira dad baaba u shaqeeya oo waxa muuy wax kale aan ka shaqeyninba marka saxaabta qaaliga muuqaalkaas aan wada daawan doonaa Suldaan Seraar iyo hadalkiisaas iyo jawaabtaas aad wada heli doontaan aanad kooda dhigdi doontaan insha Allah saxaabta waxaan ku leenahay muuqaalka dad ka soo fadlan like share subscribe comment kuna waa dhiirigelintiina markasta muuqaalada waxaan jecelahay waxaan arkay inaad la soo sootiyo haddana Suldaan Seraar jiraan dad badan oo si khaldan wax nooga sheega aniga kaliya ma aha waxaan la qabaday fanaaniinta Soomaaliyeed oo si khaldan wax u sheega laakiin wali qof aniga inta wax iga sheegay aan ogahay qofka ciwaankiisa saxda ama magaciisa ama meesha uu joogo aan ogahay anigoo og wax falcelina kama sameeyo waxana aqana kama muujiyo way naftayda aadan baa tahay waa dibsanaysaa ma dibsasho way jirtaa laakiin waxaan ogahay wax aan anigu naftayda ahay wax walba propaganda laga sameeyana de meel duleela ka galmayso taasaan uga baxay tan kale ee hadaan u noqdo walaalkay Ismaaciil wixii igu la yaqo badnaa ee propagandada ugu yaqo badnaa la iga sameeyay waxay ahayd maalmahan ay socotayba Suldaan inuu macdareen baa isguursaday ma hadda oo arinta waa hore mudii ma hadda socotaa imika socoto waliba Finland waliba joogaa bay dhahay Suldaan waana anaga caawi jigjiga barnaamijka ka galaya marka waliba waxay dhaheen أول هرا مركي تجيجا جوجي جرتي بدهن حرير بكده لكن يمكن مركو فيلان تجي أي أزجور سدين نمعوا قبل ولا شيء وفنانات شرف في سمعت بانو هيا دتك قار مو صديقي ولي ما عرفت أنت وحهم دتك قار ولا جاي بس خلدني أصحابتي دقاليجا وحرتيني إن عدل صور عرقتين مقالكي قروح ضبنا سلطان سيرار وحرتيني إن تكهل دونتان dadku mar walba waxay sameeyaan oo ay laba qof sax horaba soo sheegay laba qof hadii la isku arko way isqabaan markaas Suldaan Seraar gabadh buu leeyahay ilaahay gabadhiisa iyo maartii miis ilaahay u daayo nimca dareen waa gabadh walaashiya waana ma garanaysaa waana fanaaniinta inta badan waxbay isla jilaan way heesay isla qaadaan meel bay isku arki karaan marka salaajigeedu maadaama deegaanka ka soo wada jeedaan asxaabta qaaliga muuqaalkiina aad ka hesheen barajinaya marka waxaan dileen like kala bakayrin subscribe share comment kuna waa dhiirigelintiina mar walba asxaabta qaaliga waxaan idin ka codsanayaa inaad like soo qarxisaan like saan caadi ahayn inaad soo qarxisaan baan idin ka codsanayaa meel kasta aad joogtaan waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan muuqaalo badan baa soo dhigin doona insha Allah maalmahan channelka waan ka mashquula asxaabteeda qaaliga marka waxaan dileen muuqaalka dadka soo fadlan like saar Suldaan Seraar oo idin sheegay inaanu nimca dareen qabin inaad muuqaalka ka heli doontaan oo ku dhirgi doontaan baan rajeynayaa insha Allah asxaabta qaaliga intii shakiga ka qabtayna shakiga uu ka bixi doono insha Allah marka waxa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta aad ka joogtaan caafimaad baan idin rajeynayaa